وقتها صاحبada ku xiran janaalka Kusyara Official kusoo dhawaada muuqaalka xiga. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa sheekadii iyo qisadii aan horay u wadnayba oo ku magac baxday socdaalkii geerida. Maanta waxaan qaadan doonaa qaybtiisii bilowgii qorshaha tahriibka. Waxaan bilaabay inaan raadiyo dadka ka shaqeeya tahriibka iyo qaababka aan arrinka ku heli karo. Waxaan soo ogaaday inay jiraan niman muqallisiin ah oo isku xiran, iyagana ku sii xiran maafiyo kala duwan oo xiriirsan ilaa iyo Suudaan, Liibiya, xuduudaha iyo magaalooyinka kala duwan oo dadka halka ka daadgureeya, Khartoum ka qaada, xuduudaha dhaafiya, Saxaraha marsiya, kadibna Liibiya magaalooyinkeeda waaweyn sida Bani Qaasi iyo Tripoli geeya, kadibna halka doon laga saaro ilaa xeebaha Talyaaniga. haddii Talyaaniga la gaarana jannadii cagta u horeysay la saarayo. Laakiin wadadan dheer iyo saxarahan sidee lagu goynayaa? Dhib ma leh, dad badan ayaa habeen iyo maalin mara. Kii Ilaahay u qadarana wuu ku geeriyoodaa, kii kalena wuu ka badbaadaa. Qof walba wixii uu Ilaahay u soo qoray ayuu la kulmayaa. Dadka qaar ayaa 5 cisho ku qaadata xuduudda Liibiya, qaarna ilaa 7 cisho ama 10 ugu badnaan. Inta ayaa lagu akhrinayaa marka ay ugu badan tahay. Laakiin cidina kaagama sheekeynayso Khartoum ilaa xuduudda maxaa lala kulmaa, xagee la maraa, yaa ku wada, sidee lagula dhaqmayaa, heshiiska haddii lagaaga baxo cirsibeel maxaa kuu tala ah, meel ma gaari kartaa, sahaydu hadday kaa dhammaato xagee wax ka heli kartaa, arrin aan la filayn hadday dhacdo sidee wax noqonayaan, haddii Liibiya xuduudkeeda la gaaro maxaa lagala kulmaa, maafiyada tahriibka dadka sidee ayay ula dhaqmaan, guryaha dadka lagu xirtay iyo dadka la kala gatay sidee ayay ku dhacdaa, qaabkee ku timaadaa, ma dhici kartaa in adigana lagu kala gato, dumarka in la kufsado, in sanada guryaha lagu haysto ama ballaha ka haysto oo la adoonsado. Waxaas oo dhan waxaa laga sheekeeyay si tafaasiil ah ma ahan. Sidaas darteed qofka way la fududahay marka la yiraahdo waa tahriib. Dhibaatooyin ayaa lala kulmaa. Qofkii Ilaahay u qorayna waa uu ku dhimanayaa. Mar walba naftu mar ayay go'i lahayd. Wuxuu is oranayaa hadda awalba dhib inay tahay waad u soo diyaargarowday ee ku nasiibso. Asbuuc waliba waxaa baxaya boqolaal isla wadadii iyo dhibkii ayay marayaan. Kan dambana kan hore warkama hayo. Xitaa meel heblaayo iska jira oo maafiya dadka gadata halkaas joogaane ka digtoonaada ma oranayo. oo meel heblaayo haddii gaari kaaga jabo haraad ayaa loogu dhintay ogaada. wax haba yaraatee wacyigelin ahi ma jirto.